oo qaarkood ay isleeyiin malaa maalin islaamku uu gacan sarreeyaa imanba maysaba oo ay quusteenba maxaa ku dhacay takhwiifkaa shaydaanka ku dhacay oo ay aamineenba gaalo inaan la iskaba celin karinba oo ay isdhiibeen oo gacantaba ay wada taageenba maraykan yaa la dagaalami kara ruush aba soo hadal qaadin china alla faraweyna shaydaan waxaa ku afuufay muslimiinta وقل رب زدني علما ilaahay muuminiintii uu la hadlayaa muuminiintii dagaalkii uxud markii ay ka soo baxeen iyaga oo 70 shahiideen 70 dhaawacayeen gaaji jirta dhibaato kale jirto ayuu nin u yimi ninkaas war buu sidaa wuxuu leeyahay mawkii maad iska dhigteen haddaaba la idinku soo socdaa la isugu kiina habar wacday alladina qaala lahum an-nas inna an-nasa qad jamacuu lakum fakhshawhum ko dadku ay ku yiraahdeen dadku waa isu soo kiin urursadeene marka baqa taas isagoo ilaahay ka jawaabay wuxuu yidhi innamaa daalikum kiinaasi ash-shaytaan weeye kaale dadkii baa isu soo kiin urursadee baqa dee insi buu ahaa qof buu ahaa laakiin kaana shaytaanu yatakalamu calaa lisaanihi wax shaydaanku uu ku riixayo u qurxiyey buu ku hadlayde oo aynu muuminiinta baqa geliyo walihaada baa shaytaan lagu sheegay arrinkaas waa arrin shaydaan ka dambeey wayaan macnaheedu yukhawifu awliyaahu ay yukhawifukum biawliyaa'ihi waana usluub carabi oo macruufa kaas saa actaytu lmaala oo kale iyo waxa weeyaan liyundira ba'san shadiidan liyundira si u digo annaas dadkii biba'sin si ugu digo sheegis uu sheegaya cadaab shadiidin daran tanna waa la mid yukhawifu awliyaa yukhawifukum shaydaanku idinku idin baqa gelinaya muxuu idinku baqa gelinaya biawliyaahi buu idinku baqa gelinaya xigtadiisa oo gaalada ah iyo munaafiqiinta wa yucadimuhum fii suduurikum wuu idinku weyneynaya xoran ciidan fara badan oo hub badan oo waxa weeyaan dagaalyahana ayaa idinku soo socday baqa oo yaaca buu idinku odhanaya oo waxa maanta uu ku riday quluubta muslimiinta in badanoo ka mida oo ay aamineenba gaalo inaan la iskaba celin karinba oo ay isdhiibeen oo gacantaba ay wada taageenba oo qaarkood ay isleeyiin malaa maalin islaamku uu gacan sarreeyaa imanba maysaba oo ay quusteenba maxaa ku dhacay takhwiifkaa shaydaanka ku dhacay maraykan yaa la dagaalami kara ruush aba soo hadal qaadin china alla faraweyna shaydaan waxaa ku afuufay muslimiinta inagu ma lihiin dee muslimiintu iyagoo taag daran ha ismaqiiqaan oo dagaal ha galaan laakiin waa inaad aaminsanaato muslimku gaalka inuu iska celin karo taana waa inaad u diyaargarowdo waaciduu lahum mastatactu min quwa marka inagu leenahay culamaa sunna markay leeyihin war muslimiintu markay ducafaa yihiin ha lu goynin oo dagaal ha gelinina macnaheedu ma aha quusta oo isdhiib oo weligeedba gaalin inaan iska celin karin sidaasi aamina maaha macnaheedu waxaanu leenahay macnawiyaadka muslimiintu ha sarreeyaan ku bushaaraystaan nasri laakiin asbaabtiisa ha la yimaadaan baynu leenahay qabla alasbaabna iyo lafahooda miidaaminin saasaynu leenahay alhimika u fiirso turkigu diyaarad yar buu samaystay beerakdaar la idhaa ruushkii baa ka baqday ka hor amal bay muslimiintii gelisayba in muslimiintu wax samaysan karaan gaalada ay iskaga celiyaan berigii hore maxay muslimiin badan ay aamineen hub gaaladu ay ka baqdaan muslimiin aanu samaysanba karin dagaalkii waxa weeyaan ka dhacay meeshii adarabijaan iyo dhex maray qoladii maxay magacood armeniyiinta diyaaradda yar ruushku kusoo dhici waayo armeniyiintu way qayliyeen si walba u qayliyeen raadaaradaadii qaban maayaan ruusho aadna siisay hubkii waxba ka tari maayo maxaanu yeelnaa war wax la yeelaa ma jirte iskala heshiiye buui marka waa intaasoo loogala sii dhawaado un muslimiinta turkigana jazaahum allahu khayran baynu leenahay ilaahayna subxana wa tacaala xaqa wixii ka maqan ha ku hanuuniyo wixii wanaag ay sameeyaan muslimiintana ay ku cizeeyaanna waa ku farxaynaa
qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri ma doonaysaa acmaasha wanaagsan o dham inay kuu fududaato faral iyo sunnaba ma doonaysaa xumaanta naftaada inaad ka reebto aad ka goysaa inay kuu fududaato carabkaaga xuska ilaahay ha ka qoyanaado macnaa kun mukhiran min dikri illah waxaad noqotaa qof farabadinaya ilaahay subxana wa tacaala xuskiisa asalu llah alcadiim raba alcarshi alcadiim an yuciinana jamiica cala islaaxi anfusina وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا